muddo 2 sano gudahood waa ma aha 2 sano kadib inay doorasho hal qof iyo hal cod ay dhacdo doorasho hal qof iyo hal cod aad dalkan ka dhici karto xildhibaanku ama siyaasigu ama madaxweyne ama ra'iisul wasaare ku fikira been loo dad baa la booday arintaas ayada ah waa qareereeyeen waxaa 2 sano lagu dariyay yiraahdeen ku darsiimay la boodboodeen beel caalam iyo adduunyo ay u garaaceen gurbaan wadankay ayay ugu baaqeen in gumaysi la geliyo been in loo sheego qaranka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed been in loo sheego sax ma doorasho hal qof iyo hal cod meesha laga qabanayo meel madaxtooyada irdeeda la isku tooganayo meesha laga qabanayo xagee ku taala waxaan jaheynay doorashadii halka qof iyo halka codeed muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa barna ha codeeyana aheed barna ha iska joogaanay hadda Soomaaliya way simad qof kasto muwaadin ah uu codeyna shacabkii ii soo baxay waa kee hoteeladii lagu ammaan ilaa shacabka soo baxaya waa oo doorasho soo aaday oo fiilo galaya oo saf dheer galay xagee waa oo kadibna askar oo labisan dhinacayda ay ka ilaalinaysa yaa waa ilaan madaxtooyadii iyo SYL inta ka dhaxaysa ciidan laba ciidan oo cadow isku noolaayeen runta ma ka hadalno dalkan doorasho hal qof iyo hal cod kama dhici karto doorashada tii la qaban jiray muxuu ahaay ka soo bilaaw carta ilaa iyo muxuu ahaay xasan sheekh xiligiis 2016 la qabanay hadii la qabanay dadka ha loo sheego muxuu ahaay gobolada iyo muxuu ahaay caasimadihii iyo meelihii odayaasha aan ku aruurin lahayn ayaa aan raadinaya